ugu horeyn waxaan doonayaa inaan mahad celiyo tiimka ka socda Horyaal TV oo maanta nagu soo booqday jaamacadda Burco si ay uga ogaadaan wax xogagaal ah ama information ay ka helaan jaamacadda Burco. inta markaan ka baxo waxaan jecelahay maanta halkan inaan ka bogaadiyo ardaydii ka baxday jaamacadda Burco oo 300 iyo dheeraad sanadkan ahayd. waxaan leeyahay waxa gubateen waajib waxbarasho oo muddo soo wadeen, taasna waxaan Ilaahay idinka rajaynayaa in fursado wanaagsan oo noloshiina ku dabartaan oo dalkana wax ugu qabataan in Ilaahay idin siiyo dadaalkii badnaa ee soo muujisayna in heshaan natiijadiisa. talabaad haddaan yar jaamacadda Burco wax ka yiraahdo, jaamacadda Burco waxa weeyaan waa jaamacaddii ugu horeysay ee laga sameeyay gobolka Togdheer. waa jaamacad ay dadweynaha Burco sameysteen. jaamacaddaasi waxay haysataa opportunities badan ama fursado badan oo ay ka mid tahay macallimiin wanaagsan oo ilaa PhD holders masters waxay haysataa ilaa 7 laboratory oo kala jaajaada oo jaamacadda kulliyadaha science faculties ay leeyihiin. waxay jaamacaddu ardaydeeda geysaa sida special medicine-ka inay geeyaan tour studies ama study gaagaaban oo dibadda ugu baxaan sida Sudan iyo Jordan oo ay tagaan ardayda dhakhaatiirta noqonaysa. laboratoriyadaas iyo macallimiintaas waxay u sahleen dadka ka soo baxaya jaamacadda Burco inay noqdaan dad quality-gooda la garanayo iyo cilmi dhaba xambaarsan insha Allah. waxay kaloo jaamacadda Burco leedahay campus aad u wanaagsan oo campus-kaas oo ah campus u sahlayo qofka inuu jeclaado tacliinta, fursadna u helo inuu wax akhrisan karo sida saaxadda uu ka koobantay oo dhir badan ku beeran tahay, majaalistii iyo dhulka fariisanayeen oo loogu talagalay, kaatiinadii iyo dhulka wax ka cabayeen oo ku yaala, iyo environment aan qaylo iyo buuq midna lahayn oo loogu talagalay inuu ardaygu wax ku baran karo si fiican. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. waa salaamantiin Horyaal TV iyo dadka ay dhageysanayaan.